daawadayaal kusoo dhawaada calansida media fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saaro gambeelka furudaa wararkii ugu dambeeyey waxaa mar kale soo laba kacleeyay xisbiga madasha qaran islamarkaasna uu hogaamiyey sheekh shariif sheekh axmed islamarkaasina weerar culus ku qaaday ciidamada Itoobiya oo madaxweyne farmaajo kusoo daldalaya gudaha dalka Soomaaliya islamarkaasina qodobo xasaasi maanta soo saaray hase yeeshee arrintan ayaa cirka isku sii shareeraysa xilli oo madaxweyne farmaajo uu ku sugan yahay dalka Itoobiya iyo maanta xisbiyada ay hogaamiyaan madaxweynayaashii hore ee xasan sheekh iyo sheekh shariif ayaa iminka waxaa la leeyahay digniin culus ayay u direen ciidamada Itoobiya gaar ahaan ra'iisul wasaare Abiy Ahmed isla markaasina farmaajo aan laga aqbali doonin inuusan ciidamada Itoobiya ku soo daldalo halka ciidamada gada ay haystaan iminka ay maanta dhuuso mareeb soo gaareen hase yeeshee dagaal cusub oo iminka u bilowday madaxdii hore iyo fil Soomaaliya madaxda xisbiyada qaran ee Soomaaliya ayaa qoraal u soo direen ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed isla markaasina dhaleecayn xoogan u jeediyay waxay walaac ugu muujiyeen faragelinta rabshadaha wada ay ciidamada Itoobiya ku hayaan siyaasadda gudaha dalka Soomaaliya isla markaasina aan laga aqbali doonin marnaba madasha ayaa xusay xariga 6 November ay ciidamada Itoobiya kula kaceen saddex gudoomiye degmo oo ka mid ah kuwa gado kuwaas oo la sii daayay kadib markii lagu qasbay inay ka soo horjeestaan maamulkooda Jubbaland isla markaasina ay mucaarad ku noqdeen Axmed Madoobe madasha ayaa sidoo kale ku eedeeyay ciidamada Itoobiya inay 19 bishan is hortaageen in madaxweyne ku-xigeenkii Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan uu galo degmada Beled Xaawo ee gobolka Gado isla markaasina awood ay u sheegteen waxaa dhinacyooyinkaasi ka soo baxaya isla markaasina ay leeyihiin xaaladda ciidamadaasi waa mid aan la qaadan karin waxaa dhacdooyinkaasi ka sii horeeyay sida qoraal lagu yiri isku daygii laga hortagay in ciidamada Itoobiya ay ku doonayeen inay Kismaayo ku galaan 19 Agoosto si ay u farageliyaan doorashooyinka Jubbaland una xaqiijiyaan in musharax hore loo qorsheeyay ay wada fil Soomaaliya halkaasi ay soo suraan isla markaasina ay caqabad ku ahayd halkaasina laga hortagay ciidamada Itoobiya madasha xisbiyada qaran ayaa sidoo kale ciidamada Itoobiya ku eedeeyay inay afduubteen doorashooyinkii koonfur galbeed ee bishii December ee sanadii 2018 taas oo dhalisay in dad shacab ah lagu xasuuqo baydhabo isla markaasina aysan jirin ilaa iminka cid ka hadasha hase yeeshee ay arrintaasi ahayd mid ay loogu xumaado xilligan aan qorayno warqadda waxaa ciidamada aad u qalabaysan oo Itoobiyaan ah aan ka mid ahayn AMISOM la geeyay magaalada Dhuuso Mareeb oo si loo farageliyo doorashooyinka soo socda loona xaqiijiyo guusha musharaxa hore loo ogay ama loo soo agaasimay ayaa lagu yiri qoraal madasha xisbiyada qaran ka soo baxay isla markaasina baraha bulshada lagu arkayay madasha xisbiyada qaran oo hogaaminayo sheekh shariif sheekh axmed ayaa waxaa la leeyahay wixii horeba ka soo tag iminka ay maanta ay ciidamada Itoobiya Dhuuso Mareeb soo buux dhaafiyeen taasi oo noqonaysa in fil Soomaaliya madaxweynaha ay wadato ay galmudug halkaasi soo taagto isla markaasina aan ahayn mid la aqbali doono dhammaan dhacdooyinkaasi ku xusan ayay madasha xisbiyada qaran sheegtay inay xadgudub ku yihiin xeerarka caalamiga iyo heshiiska nabad ilaalinta dalka isla markaasina Itoobiya ay tahay mid dalka soo faragelisay madasha xisbiyada qaran ayaa ugu baaqday ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed inuu dareen u yeesho dhacdooyinkaasi isla markaana uu wax uga qabto si degdeg ah oo ka aragti bixiya Itoobiyada cusub ayaa qoraalkaas lagu yeeray hase yeeshee qoraalkan ay soo saareen xisbiyada mucaaradka ayaa la leeyahay tani waa digniin hase yeeshee ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa waxaa la leeyahay waa inaad arrintaani si weyn ugu fiirsataa haddii aan eegno qodobka xiga oo aan sii gudagalno wararkii ugu dambeeyay weerar xiriir ah ama argagixisada lagu sheegay ayaa ka dhacay magaalada London isla markaasina Toorey ayuu nin la dhax qaaday dad shacab halkaasi marayay weerar midiyeysan ayaa booliska ay sheegeen inuu ahaa weerar argagixiso xiriir la leh ayaa maanta ka dhacay boondada magaalada London oo aad u mashquul badan isla markaasina nin Toorey ku hubeysan ayaa booliska sida ay sheegeen soo dhaxgalay isla markaasina dad shacab halkaas ku tooreeyay booliska ayaa sheegay in loogu yeeray weerarkani abaara labadii duhurnimo isla markaasina marka uu falka dhacayay telefoonka u soo dhacay sida daraateedna ay u gurmadeen dadkii halkaasi weerarka loogu geystay dhowr qof ayaa la tooreeyay waxaana muuqaalo la soo duubay ay muujinayaan dhowr qof oo weerarkani ninka la rumaysan yahay inuu yahay kan weerarka midiyeysan uu ku qaaday dadka shacabka ayaa baraha bulshada la soo dhigay booliska oo kadib goobta soo gaaray ayaa toogtay ninkii weerarka soo qaaday ee hubeysnaa ama midiyaha ku hubeysnaay ayaa waxaa la leeyahay si toos ah ay u khaarijiyeen 5 qof oo ka mid ahaa dadka la tooreeyay ayaa sidoo kale la sheegay inay dhaawac yihiin isla markaasina isbitaalada lagu dabiibayo imanka ka hor inta aanan la toogan ninkan weerarka soo qaaday ayaa qof ka mid ah dadkii isku dayay inay ka hortagaan waxa uu ka qaaday mindidii isla markaasina uu lagday oo dhulka xabadka u dhigay kadibna ciidamadii ay yimaadeen
ra-iisul wasaaraha dalka Boris Johnson ayaa sheegay in lagu soo wargeliyay dhacdadaani waxaana uu joojiyay olole doorasho uu ka waday deegaan doorashadiisa oo ah meesha lagu magacaabo Uxbridge isaga oo dib ugu soo laabtay Westminster isla markaasina sheegay arrintan inay tahay mid aad looga naxo weerarkan ayaa yimid toddobaadyo kadib markii hoos loo dhigay xeerka helista argagixisada ee dalka UK isla markaasina hoos loo dhigay waxa uu sidoo kale weerarkani imaanaya 2 sano kadib markii weerar argagixiso ay ka dhacday buundada London halkaasi oo 3 nin ay ku dileen 8 qof isla markaana ay ku dhaawaceen 48 qofood taasi oo la sheegay waa midii ugu dhimashaha badneed ee ka dhacday buundadaasi hase yeeshee weerarkaasi waa ilaa iminka ninka meesha uu ka soo jeedo iyo magaciisa saxda lama soo gudbin hase yeeshee qodobadayna xiga ayaad ku daawan doontaan daawadayaal nala joog oo qodobo xasaasi ayaa soo socda nala daawo kale xukuumadda Soomaaliya oo ilaa amar dambe joojisay qorista shaqaale cusub isla markaasina ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo digniin culus soo saaray qoraal ka soo baxay guddiga qaran ee shaqaalaha rayidka ah ee dowladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in kadib amar ka soo baxay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ilaa amar dambe lagu joojiyo qorista shaqaalaha cusub oo ay qaadanayso dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan xafiisyada shaqaalaha ee wasiirada qoraal ka soo baxay guddiga shaqaalaha rayidka ah oo taariikhaysan 14 bisha November laguna socodsiiyay dhammaan hay'adaha dowladda ayaa lagu wargeliyay in aan la qori karin ilaa amar dambe shaqaalaha isku bedelka ka ah ee ka yimaada hay'adaha iyo wasaaradda ee leh qoondo miisaaniyadeed iyo kuwa aanan lahayn intaba ayaa la yiri sidoo kale go'aankan oo ah mid ku meel gaar ah ayaa hay'adda dowladda iyo wasaaradda waxaa lagula socodsiiyay in dib loogu soo sheegi doono xilliga ay munaasib noqoto iyo in dib loo bilaabi karo qorista shaqaalaha cusub ee xafiisyada dowladda muddooyinkii u dambeeyay ayaa waxaa socday tirakoob ku socday shaqaalaha hay'adaha dowladda taasoo ah markii labaad oo dowladdu ay ku samayso diiwaangelinta shaqaalaha rayidka ah ee wasaaradaha iyo hay'adaha dowladda go'aankan ka soo baxay guddiga qaran ee shaqaalaha rayidka ee dowladda Soomaaliya ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli dhawaan golaha wasiirada Soomaaliya ay ansixiyeen miisaaniyadda sanadka 2020 oo gaarayso 459 milyan oo dollarka Mareykanka ah zeesha arintani ayaa waxa leedahay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre lama doonayo in iminka la qoro shaqaale cusub maadaama tirakoobtii hore aan weli hayno isla markaana aan diiwaangelinta wadno sayeshe markii waxyaabaha dhan oo soo dhamaadaan ayaan dib ka soo tabin doonaa ayuu yiri halkaan naga daawanaysaan waa calansida media ee nala joog madaxweyne farmaajo ayaa goor dhow gaaray magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia halkaasi oo bari kaga furmayo shir madaxeedkii 13aad ee dalalka ku bahoobay urur goboleedka IGAD isla markaasina aad caro xoogan ay ka jirto madaxweyne farmaajo ayaa madaxda dalalka IGAD ayaa ka arrinsanaya qorshe cusub oo dib lagu sameyn doono urur goboleedka IGAD kaas oo ku salaysan in ururka oo si siman uga turjumo dhammaan danaha dalalka ku bahoobay ururkani sidoo kale madaxdu waxay ka wada hadli doonaan xoojinta iskaashiga ka dhaxeeya dalalka gobolka ee dhinacyada dhaqaalaha iyo nabadgelyada sida lagu sheegay war ka soo baxay madaxtooyada filla Soomaaliya maanta markuu baxay kadib urur goboleedka IGAD ayaa waxaa haatan ka dhex taagan madmadow dhanka hoggaanka wuxuuna khilaafka ugu badan ka jira xoghayaha ururka oo uu la tashi la'aan ku magacaabay gudoomiyaha ururka ahna ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed sidaasina ay ku dhalatay khilaaf xoogan dowladda Soomaaliya iyo dowladda Djibouti ayaa ka soo horjeeda halka ay ongol yihiin dowladda Kenya iyo Ethiopia سياشي waa la isku xusul duuban yahay berita halkaasi waxa weeyaan waa la isku food saaraya khudbado isdiidan ayaa halkaasi laga wada jeedi doona dowladda Soomaaliya iyo Djibouti oo xubno ka ah ururka ayaa doonaya in xilkan meerta noqdo sida markooda oo ugu soo aado balse ma dhicin arintani oo Ethiopia iyo Kenya oo kaliya ayaa isku wareejiso weligeedna dowladda Soomaaliya ma aysan qabanin xubintaasi hase yeeshee iminka ayay doonayaan ay danaynayaan dowladda Soomaaliya ayaa sida la sheegay shirkaasi la tagi doonto ama soo jeedin doonto qorshayaal lagu taabagelin karo dib u habeynta IGAD si dalalka xubnaha ka ah ay si siman uga faa'iideystaan laguna dhigo urur goboleedka ahmiyadiisa koobaad ay tahay horumarinta iyo iskaashiga dhaqaalaha dalalka gobolka sidaasina laga shaqeeyo amniga zeesha madaxweyne farmaajo ayaa berita halkaas wuxuu ku soo jeedi doonaa khudbad xasaasi ah isla markaasina uu sheegi doonaa inuusan aqbalayn in xoghayaha ay markasta isku wareejinayaan Kenya iyo Ethiopia Djibouti ayaa sidoo kale halkaasi ka hadli doono